tababarooyin muddo u socday ardayda dugsiyada sare gobolka Togdheer oo iska kaashanayeen Jamacad Alph iyo Ururka arrimaha bulshada Maan-Maal ee ka dhisan gobolka Togdheer waxaana munaasabad lagu guddoonsiinayo shahaadooyin ardaydii tababaradaasi u soo dhamaaday xafladoodii ka qabsantay hoolka deer ee magaalada Burco waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha guud ee Jamacad Alph Professor Cabdiqani macallimiinta Jamacad madaxda Ururka Maan-Maal iyo mas'uuliyiin kale waxaana halkaas hadal ka soo jeediyay xubno ku hadlayay afka Ururka Maan-Maal macallimiin iyo qaar kamid ah ardaydii dhameysatay tababarkan iyo mas'uuliyiin kale waxaana kamid ah hadaladoodii tareerinadan kale caawa halkan shahaadoodu ku qaadan doona laba tareerin bay ahaayeen oo kamid ah tareerinadii aanu sanadkan qabanay hore waxaan u soo qabanay 6 tareerin oo hore oo dhalinyaro aad u badan ka soo faa'iideysteen caawana laba halkan kale shahaadooyinkoodii ardayda lagu guddoonsiin doona labadaas waa laba tareerino runtii aad u muhiim ah ahaayeen bulshaduna aad ugu baahnayd macallimiintii soo qabatayna aan aad ugu mahadnaqayno labada tareerin waxay ahaayeen leadership and management hogaaminta iyo maamulka runtii waa mid aan aad ugu baahnahay bulsho ahaan ummaduna hadii horumarkeeda laga sheekanayo hadba waa cid hoggaankeeda iyo hoggaanka u soo baxaya sidoo yahay laga sii saadaaliya dhalinyarada runtii waxa weeyaan kuwa la rajeenayo inay ummadda horumar gaarsiiyaan badanaa waxaad aragteen ummadaha reer galbeedka waxay ku faanaan inay leeyihiin awood technical ama ay ku faanaan hub iyo cudud ciidan sidoo kale tiknoolajiyad bay ku faanaan waxay ku faanaan horumar maadi iyo muuqda balse inagu haddii nahay bulshada reer Soomaaliland waxaan ku faanaa waxa weeyaan dhalinyarada maadaama ay bulshadeena 75% dhalinyaro tahay awood inoo soo kacaysa ay tahay taan ku faanaa waata waxaan nasiib u helay oo kamid ahaa ardaydii ka socotay dugsiyada sare ee ka faa'iideystay barnaamijkan 3 cisho ahaa leader and management marka dugsiga sare Sheekh Ibrahim baan ka socdaa fooradiisa cilmiga aan halkan ka baranay ma noqon doono mid aanu intaanu iska qaadanay shahaadadiisana qaadanayno saduuqa geynay wixina la baray dadka iyo dalkan insha Allah wixii naga garansiyo ku anfacaynaa kuwa aan ka faa'iideysan fursadan ama halkan fadhiya ama media ka daawan doonaan waxa leeyahay hal laga faa'iideysto fursadahan oo kale wadankeenu maanta wuxuu ku jiraa wadan uu baahan yahay qalinka iyo dhalinyaradu badbaadiyaan waxa maanta ognahay in wadanka ka taliyaan ama inta ugu badan percentage ku yihiin odayaal ama dad waayeela waxa loo baahan yahay maanta ay taagan tahay waqtiga qalinka iyo qoraalku uu talin lahaa iyo dhalinyarnimadu ururka Maan-Maal ee barnaamijkan soo qabanqaabiyo Jamacadda Alphna waxa leeyahay jazaakallahu khayr ilaahay abaalka aan gashateen ha noqdo ha idinka dhigo kuwi idinku anfacanaguna insha Allah waxaan ballan qaadanaynaa inaanu ku anfacno dalkayga iyo dadkayagaba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa iyaga iyo jaamacaddaba ururku runtii waa urur kamid ah ururada ka jira gobolka waliba kuwooda ugu firfircoon aad iyo aad baan u mahadsantihiin baan leenahay adaan yara taabto nabadu iyo muhiimadda ay noo leedahay horta nabadda ma dareeno sababta waynu ku noolahay laakiin se maanta waxa dareemaya nabad qof ay haysato nabad la'aan oo dareemaya wanaag ay leedahay laakiin se inagu maanta hadii joogno Soomaaliland ama badalkeena ma dareeno nabad waxa taa waayo waynu haysanaa horta alxamdulillaah rabbil caalamiin inaynu ilaahay ugu mahadnaqono ilaahayna siiyay inuu inoo soo kordhiyo insha Allah sidoo kalena aynu iska ilaalino ka digtoonaado wax kasta oo nabadeena khalkhal gelinaya hadaynu nabad weyno wax alaali waxaynu qabsan karnaa ma jirto laakiin san nabad waateen wax walba ku qabsan karno horumarka ku gaarnay qayb gashay madashan ee lagu soo xidhayo ardayda aqoonyahanka ee training-ka lagu siiyay training-kaas oo iska gaashanayeen urur aqooneedka Maan-Maal iyo jaamacadda aan oran karo waa doorka jaamacadaha gobolka Togdheer ee Alph University aad iyo aad baan idin salaamaya marka hore waan idin mahad celinayaa run ahaantii farxad weyn bay tahay maanta inaan hortiina soo taago oo aan laba qodob u taabto qodob waa nabadda qodobna waa horumarka Maan-Maal iyo Alph University amintu gaaban hadalkeedna gaaban nabadgelyada cid kastoo Soomaaliland ku nool maanta way garanaysaa qof kastoo maanta Soomaaliland ku nool rajada uu haysto iyo nabadu haysto uu garanaya halkan xamar ama meelaha kale goobaha nabadgelyada daradu ka taagan tahay u faani mayne ilaahay ka dul qaaday sidan oo kale la isugu maymaado hablu sidan oo kale xorriyadu ma helaan oo ma socdaan ururadu sidan oo kale munaasabado noocan oo kale ma qabtaan jaamacaduhu tareerin ma qabtaan isku ma nimaadno ma sheekaysano ma haasaawaan yani nolosha aynu ku jirnay nolosha ay ku jiraan ilaahay ka dul qaaday farqi weyn baa u dhaxeeya jaamacadda Alph waa jaamacad tun weyn oo Soomaaliland oo dhan ku jirta
sidaa darteed aad baan ugu mahadcelinayaa professor cabdiqani iyo jaamacadda alfaba horumarka ballaaran ee ka wato annagu haddaan nahay maamulka gobolka iyo saxaafadda gobolkaba wallahi annagu ma qiyaasi karno doorka iyo horumarka ay ka wado gobolka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa cabdiqani runtii waa shakhsi dhalinyaro ah oo aqoon-yahana yacni degan ixtiraam badan ururada arrimaha bulshada ka tirsan oo cabdiqani ammaan ka sheeganayna aanu jirin hay'adaha warbaahineed ee gobolku sidoo kale maamulku sidoo kale dhalinyartu sidoo kale waa soo saare ama hogaamiyada ayaro soo saara jiilashii iyo hogaamiyaashii Britole gudoomiye aad baan kugu mahadcelinayaa runtii haddaan maanta oo dhan isdhaahdo ka sheeke waxqabadkaaga iyo amaantaada ma soo koobi karayo adiga iyo jaamacadduna maxaa la dhahayay aad iyo aad bay ugu mahadsantihiin waxqabadkiina qodobka saddexaad waa Maan-Maal organization wuxuu ka mid yahay ururada ka shaqeeya arrimaha bulshada gobolka Togdheer gaar ahaan kuwa dhisa garaadka iyo aqoonta kuwa kobciyo ka mid yahay runtii waa dad dhalinyaro ah oo si volunteer ugu shaqeynaya ummadda caqabado fara badan iyo challenge fara badan oo ogsoonahay ay jiraan hogaamintu ma aha runtii wax fudud ma aha wax la iska yeeli karana ma aha waa wax runtii la doonayo inay wax ka bedesho shakhsiyaadka qofka hogaaminta waxa ugu yar qoyska iyo aabaha iyo hooyada ugu yar waxaana ugu sareysaa in wadan la hogaamiyo intaasba waxay u baahan tahay qudwa xasana iyo in tababarkeedii la yeesho iyo in shakhsiyadeedii la yeesho qofku hogaaminta qaar karisma ah oo ku dhashana uu yeelan karaa qaar barasho ah oo runtii training ku qaato iyo waxbarasho uga soo baxo degree iyo masterana runtii uu ku gaari karaa marka ardayda ka faa'iideysatay trainingka iyo Maan-Maal labaduba waxay bulshada runtii ay ka caawiyeen ama waxay bulshadan doonayaan inay runtii ay wax ka bedelaan bari ka maalin daatada ama nuxurka ay runtii qaateen ay noloshooda doonayaan inay ku dabaqaana waa tajiilka dambe lagu maamuli doono oo intanun bay ka bilaabantaa oo isu timi intanun bay ka bilaabantaa horumar ka fikraysa intanun bay nolosha ka bilaabantaa hadda qof kastaaba noloshiisa wax ka bedelo Soomaaliland oo dhan waxba runtii iska bedelaya in yarun baanana ugu horeyn waxaan jecelahay inaan bogaadiyo bahaweynta Maan-Maal iyo jaamacadda Alph ee iska kaashaday traininadan kala duwan runtii aynu garanayno ahmiyadda ay bulshada u leeyihiin aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa uguna hambalyeeynaya mar labaadka waxaan jecelahay ka dhalinyar ahaan inaynu isla wada fahanno ahmiyadda ay leedahay qofku inuu trainino kala duwan qaato inta badan bulshadeenu taa kuma baraarugsana oo waxaad moodaa waxaynu aragnaa xataa kuweena qaataana shahaadooyinka ma qaataan waxa laga yaabaa qofkii xataa intuu trainingkii dhammaysto inuu dabeetana shahaadada iskaga tago oo beri dambe uu ku weydiiyo beydaway taasina meesha ay ka saarto shaygii cadeynayay waxaan qofku inuu qaatay intaas markaa fahanka taa aynu fahmaynaa wuxuu ku xidhnaanaya ahmiyadda aynu siinayno iyo inta ay leekaanayso effortka iyo dadaalka aynu u hurayno inaynu trainina qaadano mas-uuliyiinta ururka Maan-Maal ayaa shahaadooyin ku maamuusay gudoomiyaha guud ee jaamacadda Alph professor cabdiqani halka uu isaguna gudoonsiyay shahaadooyin ardaydii dhameysatay training-kaasi ayaa liiga Ducaal Bukhari burco